ciidamada booliska ee gobolka Cayn ee Puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Buuhoodle waxay ku soo qabteen waxyaalaha maanka dooriya ee loo yaqaan xashiishada waxaana maanta warbaahinta u soo bandhigay xashiishadan ay qabteen taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Cayn ee Puntland Faxdi Cabdikariin sidoo kalena taliyaha waxa uu sheegay in ay talaabo sharci ka qaadayaan dadka ay ku ogaadaan ayagoo xaraan karinaya maadaama lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan shirkan jaraa'id ee halkan ku qabanayna anagoo taliska booliska qaybta gobolka Cayn wuxuu daaran yahay waxyaabaha ama qodobadan ka hadli doon sida aad ogtihiin bariyahan dambe magaaladeena waxaa ka jiray oo ciidanku waday la dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha iyo mukhadaraadka shaqadaas iyadoo meel fiican bay maraysaa aad iyo aad baa lagu guuleystay in badan buu hoos u dhacay wuxuuna ku dhow yahay hadeer in la cirib tiro baalka loo yaqaan khamriga si aad buu hoos ugu dhacaya waa kontrabaan hadeer awalna wuxuu ahaa weyn ognahay sidoo ka magaalada haad durbabayana soo baxaya oo ciidanka qaybihiisa kala duwan ay ogaanayaan mukhadaraadada qaybahooda kale oo aan awal ugu banaan jirin inay deegaanadeena ku soo badanayaan ama dhalinyaradeena isticmaalayso waxa kamid ah hadeer waxaad aragtaan halkan hor yaala baashan intan leeg ee bacdan dhan ee intan leegi wax xashiishada ciidanku wuxuu qabtay muddo hada 2 casho ka hor buu qabtay waxa lagu qabtay dhalinyaro kamid ah kuwa magaalada dhalinyaradaas waxa ka isugu jira rag iyo dumar bay isugu jireen waxa laga keenay gaalkacyo dumar baa waday wada aragtaan ciidanku gacanta ku soo dhigay waxaan markaa uga digaynaa bulshada iyo waalidiinta awlaadda dhashay inay ka feejignaadaan ogaadaan oo la socdaan dhaqdhaqaaqa dhalinyaradooda caruurtooda iyo awlaadooda waayo haddii uu waalidku iska eegayo in khamri uu ilmuhu caagad sito uu khamri cabayo uu iska eegayo laakiin uu xashada isticmaalayo xashada ka sixo way ku jirtaa magaalada waa la keenaa waa kana waa qabanay raadad fara badan oo kalena waa haynaa dadkii baashan wadi qayb kamid ah waa haynaa qaybna waa naga baxsatay taa waxaan uga digaynaa bulshada inay ka feejignaadaan kala soo xiriiraan wax allaale wixii waxa ku saabsan ee shakigeeda ku saabsan inay laamaha booliska kala soo xiriiraan saldhigyada soo gaarsiiyaan si talaabo loo qaado waayo mar walba anagu haddaan booliska nahay waxaan u taaganahay la dagaalanka maandooriyaha qaybihiisa kala duwan maandooriyuhu wuxuu curyaaminayaa maanka iyo maskaxda iyo muruqa dhalinyarada curyaaminaya maanka iyo maskaxda iyo muruqa iyo maalka da'yarta soo kacaysa uu curyaaminaya taas waa uga digaynaa cidda lagu qabto maandooriyaasha noocaasa ee khamriga iyo xashiishada iyo waxyaalaha la midka kale waxaan u sheegaynaa siiba bishan Ramadaan ee barakaysan inuu galnay cidda lagu qabto talaabo cad oo sharci laga qaaday waa loo dadejinayaa xukunka maxkamadda waa loo dadejinayaa talaabo cad baa laga qaaday waa uga digaynaa dadka waxa ku lug leh ee Kenya magaalada waan ognahay cid walba Kenya soo taa intaasan kale yahay qodobka labaad ee ugu muhiimsan ee maanta aan doonayno inaanu bulshadan gobolka Cayn qaybaheeda kala duwan u soo gudbino uga digno ka waanino inta aan la isu tagin aanu kala sahdalna waxa weeye waxa dhacda waxaanu galnay bishii barakaysaneed ee Ramadaan waa bil cibaado maanta laba maraysa waxaan doonaynaa bisha barakaysan dadku inuu si nabad geliyaa oo dhibaato la'aan oo cibaado suuban ah inuu dadku cibaadeysto sida daraadeed dad baa jira ku lug leh oo bilahan oo kale shaydaan ku shaqaysto oo cibaadadii iyo wixii Ilaahayna amray intay ka leexdaan xaraan kariya oo inta mukhadaraadka isticmaasha inta khamriga isticmaasha inta xashada isticmaasha iyo inta xun inta isugu tagaan inta meel xaraam kariyaan meel hal isugu tago waxaan qodobka ugu muhiimsan ee ka hadlaynaa yahay dadka isticmaalaya inay sameeyaan xaraan oo ku kariyaan iyadoo dadka islaamku sooman yahay meelaha magaalada koonayaasheeda iyo meelaha cidada ay ku kariyaan uga xaraan oo bishan doonayaan inay shaqaystaan oo wax xaraan oo aan shaqo ahayn ka shaqaystaan dadka waxaan u sheegaynaa waa u digaynaa waxaan uga digaynaa ma dhacayso ma yeelayno ma suurtoobayso in lagu kariyo magaalada xaraan boolisku wuxuu diyaar u yahay oo heegan buuxa ugu jiraa
oo haddeer u soo jeesanaya oo khamriga siduu la dagaalamay si ka daran ula dagaalamaya cid allaale cidda isku dayda inay xaaraan karso rag iyo dumarba tallaaba laga qaaday sharcigaa la horkeenaya waa xukumaynaa garanaysaa waa dhaadhicinayna ha laga waantoobo dad baan ognahay diyaargaroobayo ku lug leh waxa haddaba waxaan leenahay inta aan laydinku imaan ha isku dayna ma dhacayso gobolka Cayn siiba caasimadiisa Buuhoodle bishan aanu hadda ku jirnay ee barakaysan ee Ramadaan in wax xaraan lagu qariyo sharci islaamku inoo ma ogola diinteena islaamku soo ma ogola waa bil cibaado dad islaamina annagoo kaashanayna culimaa diinka waxgaradka dadka cibaadaysanaya ee garasa wanaagsan tallaabo cad baan ku qaadanaa meel kasta joogan oo haday guryaha hoostooda wax ku kariyaan guryaha hoostooda ugu tagin tallaabo cad baan ku qaadanaa dhinac kasta oo lagu kariyo ama waxa la yiraahdo daantan dhinaca Itoobiya ha noqoto ama dhinaca ha noqoto ugu tagin kuwa isku dayeenay dhinacan xadka inta booliska uga cararaan xadkan garanaysa Soomaaliya inta booliska uga cararaan doonayeen inay gudbaan dhinaca Itoobiya iskaashi amni oo weyn baa naga dhaxeeya ciidamada halkan jooga iyo maamulkan dawladda deegaanka Soomaalida halka ay dabcan ku karayaan xadka gudihiisa halkaas lagu tagay annagoo wada socono iskaashanayna lagu tagay iyagaan u dirina oo la kaashanayna annagoo wada soconaa lagu tagay sinaba uma ogolin in xaraan lagu kariyo magaalada waa in si nabadgeliya dadku u cibaadaystaa loo wada cibaadaystaa aan la qalin daarin cibaadada iyo Allah ka cabsiga iyo maqfirada dambi dhaaf waa in aan la qalin daarin taas baan uga digaynaa cid kastoo ku lug leh bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ugu hambalyeynaa oo aanu leenahay hambaliyo bisha khayrka badan ee barakaysan ee noo dhalatay maxamed cali bile warbaahinta daljeer Buuhoodle ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraaca geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta wow macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank